tani waa Sumaye Cabdixakiin waxay ku howlan tahay inay wax barto caruurtan oo intooda badan awoodin waalidiintooda qarashka ay wax ku baran lahaayeen kaliya ujeedadu waa inay garab siisaa sidii iyadana ay u soo gacan qabteen dhalinyaro aqoon-yahano ah oo isku howlay waxbaridda caruurta ay dhaleen qoysaska danyarta ah halgankeeda waxbarashada ayaa noqday mid ka muuqda gudaha iskuulka ay wax ka barato waxayna xajisanaysay kaalimaha hore si kadis ah waxaa loogu qabtay xaflad lagu muujinayo dadaalkeeda laba geeslaha ah waxaana isugu yimid macallimiin arday waalidka Sumayo iyo dhalinyaradii kaalinta weyn ka geystay inay fursad u hesho tacliinta alla ka sokow Cabdullaahi Suleymaan waa gudoomiyaha ururka Garaadmaal wuxuu ka waramayaa ujeedada ay u soo qaban qaabiyeen kulankan waa dhiirigelin aan u sameeynay ardaydeena Sumaye Cabdixakiin Maxamed oo kaalinta koowaad ka soo gashay iskuulkii Facaweyna ay dhiganaysay iskuul Alanwaar galaaskeedii form 3 ama 12aad si loo yaqaan kaalmaha koowaad ay ka soo gashay saas darteed dhiirigelin iyada aan u sameeynay oo aan u baahannahay inay waxbarashadeedii hore u sii wado ee kaalmaheedii sida maanta iyo shalay u gali jirtay inay u sii gasho Sumaye horta ilaa iyo dugsi dhexe aan u soo dhignay fasalka 7aad oo anaga aan u dhigaynay oo iskuulka Garaadmaal dugsi waxbarashada danyartii asaasiga aqoonta ee Garaadmaal ee lagu dhigay fasalka 8aadna aan ugu wareejinay iskuul Lamyaasin Cartan Alanwaar saaxiibada iskuulka oo madasha ku sugnaa ayaa ku farxay hadiyad guddoonsiinta kadiska ah loogu sameeyay dadaalkeeda qaar ka mid ah ayaana nala hadlay magacaygu waa Amina Siiro ugu horeen Sumaye ardayad oo iskuulka dhigata kaliya ma aysan ahayn Sumaye waxay gabar oo asxaab aan ahay oo iskuulka isku soo bilaabnay saas ay tahay waxay gabar aad iyo aad u dadaal badan marka laga soo tago dhanka waxbarashada badana waa isku caawin jirnay ayadan waxay gabar oo aad u fircoon marka laga dhoo dhanka oo su'aalaha marka laga shaqeynay aad u fiican magacayga saddexan waa Qaadam Maxamed Xuseen Sumaye waa ardayad wanaagsan oo fiican ileen anaga Sumaye forman koowaad ilaa ay hadda isla soconaa ileen markaan iskuulka bareefad ahaan aan dhiganayna baada waa isla joognay afarteen waa isla noolay waa isla wax kasta waa isla qaybsan jirnay dhan waxbarasho ha noqoto dhan wax kasta ha noqoto haddana form 4 aan nahay oo form 3 iskuulkan 8aadka noola keenay ilaa hadda waa isla socon dhankeeda Sumayo ma ahayn mid filanaysay munaasabadan lagu muujinayay sida ay waxbarashadeeda uga soo dhalashay Sumaye masuuleen madaan kadisay iga dhigeen lama filaan marka meeshaan imaado lib ogaadeen xaflad leeyahay waxa la dhagaa Garaadmaal xaflad qab soo bax doorashii waxa saa jirtay marka hawlka soo galay ogaadeen aan xaflad la dhigaay waxbarashada waxay soo bilaawday guriga waxay ugu baray hooyadeeda oo iga soo bilaawday baata ilaa ko labo isoo dhigeysay in kaalmaha hore ay u gashay ardayda ay isku fasalka yihiin waxay soo bilaabatay waqti hore formanka soo galay form 2 hadda form 3 ayna wada soo galaa iskuulka 8aad kan koowaad galay kan hala dawladda shahaadada markay soo baxday waxa kamid ah ardayda 3 arday ee kaalmo ugu hore iskuulka dhanka iskuulka marka loo fiiriyo ardayda waxa kamid ah finaalahan hadda waa kana midkaan hadda loo dabaaldegay oo iskuulka dhan u galay waxbarashadeeda waxay ku dhinac wadaa in waqtigeeda qayb ka mid ah ay u hurto caruurtan oo ka soo jeeda qoysas danyar ah waxayna bartaa Soomaaliga iyo xisaabta waxa wax ka dhigay iskuulka Garaadmaal arday soo arday anoo kale waa arday iga yar oo walaaliye oo kale waxa jeclaa kasta aqoonina u faa'iideeyo ayaga amal leeyahay arday leeyahay adan kasta aqoona u faa'iideeyo marka duurtiya wax u dhigay 7 saac marka macadka ka imaado 7 saac iyo bar ayaga wax u dhigay 8 saac farxadeeda laga wada dareemay gudaha hoolkan waxay sidoo kale qiiro gelisay Sumaye hooyadeed waxayna qiratay in gabadheeda ay tahay mid dadaal dheer ku bixisa nidadeeda aad u farxaday marka inta imaanina ani gabadheeda oo maxay ahayd meeshii labada joog aan arkay aad iyo aad macnaha xamaasad iyo qaada aniga nafsad ahaanteyda aad ugu farxay barashada gabadheeda horta aqoon waan heetay aqoon ma soo baratay gabadheeda waxbarashada marka hore guriga ana ugu dadaalay oo sabuurad yar aan guriga ugu dhajiyay oo baaytaada ugu bilaabay oo far Soomaaliga meesha aan ku bari jiray markay guriga wax akhriska iyo maxay ahayd ay baratay xisaabtii ku dhufashada iyo ka jartay aniga aan ku baray ka bacdi iskoolkan oo lacag la'aanta la ii soo sheegay gabadheeda sidii aan Garaadmaal ku geeyay dadaalka dhinaca waxbarashada waa halka lagu kala tagay dad badan ayaa ku soo waxbartay duruuf ay dantu biday waana kuwa ugu badan ee halganka tacliinta hormoodka u noqda